حنقات كالروح جئل مربو هدرد وقتقو مرباد وديو نصيب ويشا ستاقي مرباد وديو نصيب ويشا ستاقي حنقات كالروح جئل مربو هدرد وقتقو مرباد وديو نصيب ويشا ستاقي مرباد وديو نصيب ويشا ستاقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة إلى الهانتين بكسر دوادة برنامج شيني هنقاط وضقبرتين شاشة تلفزيون كمان حبان تي في نكده هاتان برنامج كان هنقاط على بكسر قاضنا هرمرك بأحد وين اللي كتير جودها مجال البرمية جودهان قبل كأوضل. دعوة يا أستاذ لسه عتيم بتضباطه روح حق دعوتين برنامج كان هنقاط قرالك للدوين ويصوب نجيم بوجاج ريوتك للدوين كل رقم مجال البرمية تضباط كان وحن كسر قاضنا برنامج كان هنقاط هرمرك بأحد وين اللي كسر أما بلغة سمية وضد وين اسكو حدا مقالة بورم أي مقالة دلاء وضد سو آدي آدلو حاجة بتري أنا هكذا نقول مهد حلنا هيدا أسرد أو كعوني في جيستي وأنا ذكرنا إذا لأنت وضد سماع أي سمتين برنامج كنا نعاوح عن كيف لقيتنا عن يدرس بدي جدنا مقالة كلا دوين وربحين كلا دوين وضد سي داوشونكس. حنقات كالروح جئل مربو هدرد وقتقو مرباد وديو نصيب ويشا ستاقي مرباد وديو نصيب ويشا ستاقي. حنقات كالروح جئل مربو هدرد وقتقو مرباد وديو نصيب ويشا ستاقي مرباد وديو نصيب ويشا ستاقي. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي يا محمد سبحانه وتعالى مشروع الخير جنتي اللي وفتيه هذا نسخري كل حتى وربحية كمان حتى طريقي ذكسيه سخري طريق وجبجب إلهي إذا كي ما تروح كتنبيه واحد نوحر واحد نقول يا هل كيلومتر بإذن الله الكريم وشقده إذا بلاد دونه تطبيق كتنبيه marka halka waxa inooga muuqatay inuu dariiqii kolkii gabagabeeyay runtii ma hadal badnin dad badan baa maanta la lahaa bariyaha waa la iski weydiinay annaguna waxaan halhays baan qaadano waxaan nidhi hadal yar iyo hawl badan ayaa de kulay la qaataan maalin walba inta saxaafada loo yeero hadii laga hadlo kulay wax badan ma kordhinayso laakiin shaqo badan oo la qabto ayaa wax walba ka muhiimsan ilaahay filligii maanta waxaan soo siyaartay Sheekh Maxamed Siine oo runtii aad aan ugu haweenahay kelmadeena waaweyn ka mid ah waxaan jecel lahay bal isaguna wixii kelmada inuu maanta dhiirigelin iyo talo iyo tusaalaba inuu nasiyo soo dhawaashay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Waxa mahadna Ilaahay subhanahu wa ta'ala walaalayaal oo maaragtay saasoo kale inoo fududeeyay طريقة وين ما عرفت أمضى معنا وحويان قبل كان دقن أوضل يصل قبل أيام بدون كتاميا وحكى لهم هذا بعض له هيدا سردة وحلقة يدو قادتي وإسكسارتي وهوشاس وقنتتي إلهنا سبحانه وتعالى ووافجيي توفيق ذا وحكى له يدنا ما هذا صدحات له دولة سومالان وهذا معنا وحويان أنت وقدم بيسي دوري 8 كيلومتر وجوداً بيسك كعوية هيدا سردة وحكلهم هذا ضد كي الصوماليات كسوق قاتي اسمها وضد ملك استوى جوجان با وحاو النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس أنفعهم للناس ضد وحاو خير بدن كأقول نفع بدن
maanta maadaama ay dhammaystir marayso ilaahay baan horta ugu mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala waxaa mahad weyn leh dadkaas maaragtay hay-adda asarda maamulkeeda ah ee qaybtaa weyn qaatay waxaan anigu message-kaygan maanta u dirayaa dadka qurba joogga ah ee ka soo jeeda macnaa waxa weeyaan gobolkan aynu degannahay ee Somaliland khaasatan gobolka Awdal iyo Salal iyo maaragtay Gabiley in haddii ay dhammaatay oo maaragtay gudoomiyaha hay'adda asarda Cabdullaahi Xaaji Ciise noo sheegay in 1 kiiloomitir oo kaliya uu dhiman yahay marka 1 kiiloomitir dhammaado waxaan ognahay wadadii ka muhiimsanayd ee weynayd oo isku xidhaysay Boorama ilaa Lowyacada in iyaduna u baahan tahay ummadda qurbuhu inay u istaagaan oo ay sababulaan oo ay ka qayb qaataan ayagoo doonaya in ay sidii ay misaalka u noqdeen iyo example-ka ee ay wadada u bilaabeen ee maanta loogu wada dayday macna waxa weeyaan inay midaan isna bilaabaan ay hawsheeda qaataan waxaan aad iyo aad xaqiiqatan ugu farxo ayaan ku arkay wadada maanta wadadaasoo dadka dhib badan xaqiiqatan ku haysay waxaan ogahay qof kasta oo maanta mara oo qurba joog oo yimaada ama wadanka gudihiisa jooga oo ka shaqeeya inuu u ducaynayo dadkii qabtay oo dhan waa camal saalixa oo waliba kamid ah acmaasha aanu ajarkoodu go'in ee loo yaqaan maaragtay saasoo kale acmaasha camalkoodu aanu istaagin maxay nabiga kaleey salaatu wasalaam todobada shay ee aanu camalkoodu go'in waxa uu ku daray aw shari'an libni sabili banah wada uu marka qofka maraya ibn sabiilka loo dhisay waxay kamid tahay acmaasha ila qiyaamada soconaysa marka waxaan leeyahay dadkaas macna waxaan qurba jooga ka soo qayb qaatay insha Allah taala dadka gudaha laftoodana waxaan leeyahay hawshii aad bilowdeen ee idinku aad muhiimka u ahaydeen laf dhabarta u ahaydeen maanta way dhameystirantay qaybteedii koowaad qaybtii ka muhiimsanayd ee labaad ayaynu insha Allah taala hay'ad u jeesan doontaa oo la shaacin doona oo la idin soo ogeysiin doona waxaan jecelahay markaas sida ugu khayrka badan ee ugu fiican inay ummaddu ugu istaagto annaguna haddii aan qurba jooganahay waxaan ballan qaadaynaa wixii aan qaban karay ee wadada ku saabsan inaan u istaagno oo hay'adda asarda dhinac istaagno aad bayna u mahadsan yihiin macna waxa weeyaan odayaasha meesha ka soo qayb galay Xaaji Muumin oo aad garanaysaan iyo Ismaaciil Riiraash oo aad garanaysaan iyo Cabdullaahi Xaaji Ciise iyo odayaal kale oo ragii asarda kamid ahaa oo dhinacyada kala taagan aad bay dhamaantiin u mahadsan yihiin waan idin mahadnaqaynaa baad saxaafadda ee markaas soo kale arintan tabinaysa u gudbinaysa caalamka وجزاكم الله خير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا ابو الشيخ محمد المهدسيه هي اول بدت كدبت وانا قال قيب قال runtii landa madadu ka timid in kasto maanteedu doorka u yar badan tahay wadidana ragga kama yareexanayne waxoogaa waa caruurta sida kulba ay ku kala yihiin baad yar kala jeclaa hablaha iyo raggi labaduba waa dadkeeni laakiin habluhu way ka yar dhiirayeen wadaniyaday ka yar jecel yihiin shilkay soo huraan oo kiiloomitir horta kaligood ugu maanu tagin soo saamaha raguna waxaan leenahay ha ku daydo culimadiina deeshaashiina nagala joogo kullayba iyaguna waa ka soo qaybtooday way qaateen qolada midiyo dabad iyo gudaba isku xidhaysa iyaga ku dhowday qaybtooday qaateen waxdaani de waxa soo barnaamij waxa soo wara gudbin arrimuhu ma kala socdeen marka waxa weeye bahashi shicib ma samayn karo way baaqatay shicib uu sameeyay dawladii Soomaaliland waa ku taageertay dadweynaha gudaha iyo kuwa Djibouti iyo kulligoodba waxaan leenahay hal laga wada qayb qaato nin walba oo ka sheeko sheegay meesha in janno yar taale haday kulli rag daadaydan waa bisii socdaan waxaan inoo horeynaa qolada dhalinyartina aan ugu dayarto lillahi wa rasuulihi arintu waa ka injineerka wadada dhisay inta mahadiyada ee dhamaystiray waa injineer Cabdullaahi Cabdisalaam Sheekh Al-Jawhar إلهي جزاك سجنا كسير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horta asalka marka hore waxaan salaan wasiirku ila soo hadlay shalay salaam bin safar waxaan idin ka sugayaa hawsha oo dhameystira waxaan marnay halka wala isku wada iman doona yaa ilaa madaxweyne furitaankeeda loo diyaar garow marka salaam baa horta idin wasiirkii wasaaradda madaxtooyada Xaaji Cali Xasan taas waa taqoonta labaad waxa weeye tigil kale horta oo dhameystir weey inta maanta shubina waa inta ku boodnay markii hore oo yaani de transport anoo ka fikirnay say wadada ayaan lagu boodnay maalmaha dhow la garaacay maanta horta la sibona wanaga shubayna wadadii waxa weeyaan ka soo bilaabantay dila xag kale ka soo bilaabantay Boorama
isku xidhkoodii isku imaadkoodii waxa ka dhiman 500 mitir aduu waxa weeyaan kilomitir aduu marka inta lagu daro kilomitir bay soo noqonaysaa waxa ka dhinaadaan iyo mooyeen exactly 1 kilomitir bay soo noqonaysaa oo waliba inta badan ay samaysan tahay oo caday taalo marka horta waa guul wixii la bilaabo oo dhamaada in fact waxa weeyaan asarda meesha waxa ku bilowday moral iyo qalbi adag waaynu waxa looga taariikhiyan markii wadada la bilaabayo hore ay ma aan daamriyo waxba lagu fikireen waxa haydeen ragii ma taqaanaa de ku hindisay inay wadadaasi bal la mari karo waxa weeyaan cagaftii laga soo bilaabay boorama iyo dilo ku geyseen in fact waxa weeyaan wada road bay hayd oo waxa weeyaan de wado waxay markaa carratuul ma ahay waxa dhul baa caadi ah laakiin asalaxdeen oo rafilmadun ka biiseen wada road ku dhibtiisu leeyahay marka roogto sideedun bay ku noqotaa horta waxaan isboonaaga maanta inay u taaganahay iyadoo daamura cimiladii dheereed ee yani adeegsanayseen in fact waxa weeyaan wax qabadka weyn waxa weeyaan kun waxaad qabateen de waxa weeyaan maanta wax la qoobi kara maaha dawladuna xukuumadda siireeyay xisbiga kulmiye in fact waxa weeyaan kaalinta weyn iyaga qaatay waayo waxa weeyaan community markay wax qabsadeen ay arkeen waxay ku iyagana waxa dhiirigelisay taad dadka qabsadeen jawaabteeda ka bixiyaan waxaan ma leeyahay waa 17 kilomitir inta iyaga ma taqaanaa maanta magaca dawladda lagu dhisay magaca community-guna waxa weeyaan waa 8 kilometers dhammaan Somaliland meel kastoo la joogo sharaf ay noqotay wadadana waxa weeyaan in fact waxa la yiraahdaa meel gobolada badan bay leedahay golaha duruufaha horta nagu kalifay waxa weeyaan dhulkeenu waa dad beeraley in fact waxa weeyaan wadada markaad sameynayso dhul adag baad doonaysaa waxaas oo gobolada la arkayaa in fact markaanu calaamadaha u sameeyno waxay noqon doonaan waxaan waxba yaani dhibaatada tirsanay way iska bii doontaa waa inta yar naga dhimanay dadku tabayaan waa calaamadihiin weey calaamadihiina imkadana nu hindiseedii iyo habkii loo sameeyay ku jiraan annagoo ka sameyn doona wax permanent oo aan reer miyiga qaadan oo goosan oo yaani dadkuna yaani ama gaadiidka marayana ay arkaan sababta gobolada keentay waxa weeyaan dhulkii beerihii waxa dadkii maanta itaalkiina wada kaystaan qoodi bay dadku qortaan qoodiga haddaad mariso de waxa weeyaan in fact waa macna reer baad rartay waddanka ka xisay weey marka waxa weeyaan laakiin wadada inteeda kale waxa weeyaan alignment-aana way fiican tahay meelaha gooladaana in fact waxa weeyaan super elevation fiican baan u sameeynay si gaarigu traction-ka uu sameeyo marka uu leexanayo uu traction-ka u raaco taasi waxa weeyaan marka technically ama geometry kale wadadaas waxa weeyaan 100% technically way ku dadaalay 100% waxba ka meeshaan ma jiro inta ka bacdi waxa weeyaan taa marka la dhameeyana horaba waxa weeyaan in fact himiladiinu way sii socon doontaa wasiirkuna maalintii wuxuu idin yiri hayga weydeynina tagalbeed waa yani iyadoo shilisan bilowno taan baan ka sugaynaa hadda la yiraahdo wasiirka wasaaradda hawlaha wasiirka wasaaradda madaxtooyada iyo madaxweynaha Axmed Maxamed Siraayo waxaan leeyahay wax qabadkii maanta wata way mar dhashay intaas aan kaga baxayaa wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh والسلام على من لا نبي بعد شهد ان لا استغفرك واتوب اليك قاد الصحافه السرده الشيخ محمد شينه وعلماء محمد رحوي UK dhamaan maxaan ku raxway inta halkan joogtaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii wixii dardaaranha sheekh ayaa dhameeyay haday tahay gudaha iyo dibaddaba anagu waxaan runtii idin leenahay haddaan nahay maxaan ku raxaa sarda maxaan ku raxway iyadoo aanan runtii dhaqaale badan haynin ayaanu dariiqa bilownay cid kasta oo maxaan ku raxway dariiqa wax ku soo darsatay ama maxaan ku tabarucdayba waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala meeshaad ka keenteen Allah idin buuxiyo maantana runtii maxaan ku raxway dadaalkii badnaa maxaan ku raxway aad soo bixiseen ayuu dariiqa sida maanta maxaan ku noqday halka waxaan markaa ka muuqata inaan maxaan ku raxway wixii aad ku soo tarteen dariiqo aanu meel kala marin gacantii aaminka ahayd ee maalintii dariiqa la bilaabay aan ka ballan qaadnay inaan wixii ku fulinay maantana maxaan ku raxay ay tahay toogu muhiimsan waxa weeye insha Allah ta'ala marka sida injineerka iyo Cabdullaahi Xaaji Ciise iyo maxaan ku raxay cidii iga horeysay ay maxaan ku raxay sheegtay markuu dariiqa noo dhamaado hawl weyn ayayna sugaysaa taa ayaa la rabaa marka inaynu gacmaha isu qabsano qof kasta waa inuu meeshiisa diyaar ka noqdaa oo aan bari ka maalin odhan layma sheegin ma ogeyn inuu dariiqii dhamaaday sidaanay noqotay waxaan doonaynaa inaanu gacmaha isqabsano dhammaan maxaan ku raxay ummadda maxaan ku raxay goboladan maxaan ku awdal sanad iyo maxaan ku gabilaba ka soo jeeda iyo ummadda maxaan ku raxay muslimka cid kasta wax ku tari karaysaba in dariiqii maxaan ku raxay dhinacaashe maxaan ku raxay galbeedka la bilaabi doono annaguna haddaan sardanahay diyaar baan u nahay dhammaantiin waxaan ilaahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaan aad ugu faraxsanahay maanta
koray cawl afkeedii oo ay wadadii ka harsan tahay sideed oo anigu 2 bilood ka maqnaa 2 bilood aan ka maqnaa asarta ay soo gaarsiiyeen anigu markii hore ku ogaa eeg aad baan ugu mahadinayaa gabadha sida fiican u shaqeeyay dawladana aad baan ugu mahadnaqanaa waxaan leenahay halkaas aan ka sii wadanaa wadooyinka alxamdulillah dadka waxaan leenahay raawdan iyo sanadna inay wadooyinka ka qayb qaataan burburkooda marka hore aan soo gudbay ayaan waana waxaan horay wax yar magaalada inta magaalada 700 ayaan horay shaqaduna si fiican oo socota wax dhibaatooyin ma jiraan assalaamu calaykum warahmatullahi الروح جعل مربوها قرضا وقتقو مرباد وديو نصيب ويشا ستاقي مرباد وديو نصيب ويشا ستاقي أنا قاد كالروح جعل مربوها قرضا وقتقو مرباد وديو نصيب ويشا ستاقي